talooyin ku saabsan barashada luqadda Ingiriiska kuna socota shakhs walba oo dareynaya inuu barto luqadda Ingiriiska. Waan ogahay barashada Ingiriiska inay tahay caqabad weyn oo ay ku tahay dhammaan bartayaasha luqadda Ingiriiska, balse waxaa jira talooyin ee habboon aan doonayo inaan idinla wadaago maadaama aad tihiin bartayaal luqadda Ingiriiska aniguna aan ahay macalinkiinii ee baraha luqadda Ingiriiska. Ingiriiska in la barto waa easy, balse shakhsiga baranaya ayaa ka dhigi karay inay u fududaato ama inay ku adkaato. Haddaad doonaysa inay ku fududaato barashada luqadda Ingiriiska, ugu horeyn wax walbo aad baranayso waa inay kasoo go'daa qalbigaaga. Ugu horeyn waa inuu qalbigaaga kasoo go'aa. They waxay dhahaan it must be from your heart. It must be from your heart. Waa inay qalbigaaga kasoo go'daa inaad aqrido horta luqadda Ingiriiska, inaad aqrido ereyada, inaad aqriso ereyada. Markaad aqrinayso ereyadu waa inay ahaadaan ereyo jumlad ku salaysan ama jumlad ku jira. waa inaadan ku dhiiranin inaad barato erey khaliil ah ama erey keli ah, because erey keli ah awood uma lahan kartid in ma aragtay aad ku hadasho ama inaad dhisto. laakiin ereyga markii lagugu siiyo in sentence ama jumlad markii lagugu siiyo waxay kuu saacidaysaa ereygaas inaad bedelin karto, inaad ereygaas aad bedelan karto, aad erey kale aad ku bedelan karto ereygaas. dhegeysiga waa qayb ka mid ah qaybta ugu fiican ee ardayga uu ku baran karo luqadda Ingiriiska. 2017kii iyo 16kii mid ka mid ah ardaygayga oo luqadda Ingiriiska markaa ka baranayay offline-kiya ama fasalkiya Ingiriiska oo classroom-ka ah, wuxuu focuska saari jiray inuu dhegeysto mar waliba, inuu iPhones inuu dhishto dhagaha uu dhegeysto dadka u dhashay luqadda Ingiriiska inuu mar walba dhegeysto, taasoo ka saaciday oo inuu luqadda Ingiriiska uu ku hadlo. xataa markuu ku hadlayo waxaad moodaa in ma aragtay sida like negative speaker, sida qof u dhashay oo kale. maxaa ka saacida waxay tahay dhegeysiga. dhegeysiga waa qaybta ugu weyn ee barashada luqadda Ingiriiska. midda kale writing isagana waa very important. writing waa inaad samaysaa dictation. anigu markaan baran jirnay waagii hore dictation samayn jirnay, ereyadu in macalinka uu kugu soo yeedhiyo oo ereyada aad qorto waad ku baranaysaa. midda kale readingka, akhrinta. readingka isagana waa very important. reading wuxuu kaa saacidayaa inaad ku hadasho luqadda Ingiriiska, because the more you read, inta badan aad akhriso ayay gaarsiisan tahay ku hadalkaaga luqadda Ingiriiska. marka readingka waxa weeyaan waa very important. anagu markaan baranaynay luqadda Ingiriiska waxaan ahayno arday isku xidhan, markaas waxaynu samayn jirnay akhris fara badan. akhriska fara badan, qofka akhriska badan waxaa loo yaqaanaa Ingiriiska bookworm. waa bookworm. qof akhris badan wax walba akhrinayo, ku celcelinayo ereyada, ku celinayo, ku hadlayo Ingiriiska. midda kale mar alla markaad doonayso inaad ku hadasho luqadda Ingiriiska waad xishoonaysaa, waxaad dareemaysaa xishood, waxaad dareemaysaa cabsi, oo waxaa is leedahay haddaad ku hadasho ama khalad gashaa oo lagugu qoslaa. maya, dadka u dhashay luqadda Ingiriiska way ku hadlaan, khaladna way sameeyaan, balse khaladku ma ahan aad samaynayso in qofka aad la hadlayso uusan ku fahmi karin. ma aha, wuu ku fahmayaa, because qaabka ama wasaa adiga u rabto ama waxaad ula jeedo hadalkaas wuu fahmaya qofka u dhashay luqadda Ingiriiska. haddaad khalado tusaale oo kale waxaa ku walwalaysaa das baan siinayaa, do baan siinayaa, is baan siinayaa, ar baan siinayaa ayaa ku walwalaysaa. maya, don't worry about that. ha ka walwalin, gili, jijibi, isku day, maalin dambe waad sixi doontaa insha Allah. halkani waxaa idinkula wadaagayaa haddii aad danaynayso barashada Ingiriiska, waxaan idin hayaa class VIP ah oo aan idinkaga dhisaya ku hadalka Ingiriiska. waan ogahay ku hadalka Ingiriiska inaad qaati ka taagan tihiin, balse waxaan damaanad qaadayaa insha Allah inta karaankayga ah ku hadalka Ingiriiska inaan idinka dhiso. waxaan idinku diyaarin doonaa insha Allah 60 month 6 bilood guarantee. anigaa damaanad qaadaya 60 month ayaan idinku diyaarinaya oo ah 6 bilood insha Allah. haddaad diyaar tahay waad igu soo biiri karaydaa. wax alla wixii tala ahne waad idila wadaagi karaydaa insha Allah. muhiimadeedu waxa weeyaan arday walba oo doonaya inuu barto luqadda Ingiriiska inaan ka saacido